بارك الله marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddiga qabanqaabada oo ugu weyn yahay Adar Xasan iyo waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo guddiga qabanqaabada xafladan qiimaha badan ee ugu weyn yahay Xasan Cadde iyo dhalinyaradii mas'uuliyaan leh la shaqeysay odaynimada lama jecla iyo gabdhahaba sidaas oo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gabadhan walaashayna oo maxay ahayd Shabaara Mahmoud oo runtii wax fiican sheegtay abaheed inuu san aqoonin hal kelimo Ingiriisi markay imaanaysan haddana maanta u diyaarsan inay noqoto wasiirka nacam marka taas waxay muujinaysaa fursadda weyn ee ka jirta dalkan oo u baahan inaan dhagaha ku qaadno sidaas oo kale waxaan rabaa inaan mahad celiyo wasiiradda oo runtii aan soo wada shaqeynay malaaqa iyo akhyaarta kale meesha fadhida principalka iyo dhammaan marti sharafka maxayat wadayaasha dhaqanka culimada haweenka iyo dhalinyarada dhammaantiin waa idin mahad celinaa waxaan ka mahad celinayaa soo dhaweynta iyo runtii hadallada qiimiga badan ee maanta meesha laga soo wada jeediyay intaas markii aan ka gudbo mar labaad fursad ay tahay inaan Birmingham imaado runtii waxayna tilmaamaysaa kala duwanaashada bani aadamka inuu kala duwanaado mararka qaar inay macna sameynayso taasna waxay ka muuqanaysaa Birmingham inay naqatay magaalo yani Yurub oo dhan ugu haysata Soomaaliya ugu weyn xagga kala duwanaashada taas waxay muujinaysaa bani aadamka markuu fahmo qiimiga bani aadamka kale uu leeyahay inuu ixtiraamo oo ogaado qofka kale ee walaalkiisa xuquuq iyo waajibaad asaga la siman inuu leeyahay taas marka anaga waxayna siinaysaa Soomaaliya hadaan fariin muhiim ah oo anagoo hal qoysa waxa aragtayna naga dhaxdhaceen inaan fahamno marka waxay ahayd inaan sameeyno aan ka maran habaabno inaan hadda u laabano waxa la yiraahdaa qofku haduu habaabo ama uu dhumo waxa uu laabtaa meesha uu uga dhumay dariiqa marka inaan u laabano meeshii aan uga dhanay dariiqa waxaan isleeyahay waa talada toosan oo maanta aan qaadan karno miitaalna aan u qaadano meesha maanta aan joogno maanta intaas waa horudhac waxaan rabaa inaan idin sheego ujeedada foundationka iyo ujeedada xafladuba inay tahay in la baadi goobo nabadii lagu baadi goobo habkii dhaqanka iyo Soomaalinimada ay ku jirtay ee hore u jiri jiray Soomaalidu waligeedba bani aadam meesha ku nool yahay waa dabeecadiisa in conflict uu yimaado laakiin dariiq wanaagsan inta geed kale wada fadhiisto iyadoo la isdilaynin nin la arkaba gartiisa soo dhigto ayaa mushkilada la xalli jiray annaga hadda 20 iyo dhowr sano maran tahay dawlad xoogan dawlad waa jirtaa mar walba dawlad waa noo jirtaa Allah noo daayo Allah noo xoojiyo laakiin waxaan u wadaa dawlad khidmada gaarsiisa qof kasto Soomaaliya meesha uu joogo taas marka kuma imaan karto inaan dhahno wax walba dawladdan ka sugeynaa waxaan isleeyahay khaladka jira taas ka mid ah dawladdu shaqadii loo idmaday ha qabato laakiin adiga ka shakhsi muwaadina Soomaali ah maxaa laga rabaa inaad qabato مثلا haddii aan soo qaadano dadka jooga Ingiriiska ama jooga dibadda ilaahay fursad wuxuu u siiyay inay wax bartaan inay caafimaad helaan inay shaqeystaan maxaa u maleynaysaa dadkii gudaha uga soo tagnay maxay ku nool yihiin duruuftooda waa adag tahay duruufta ka soo carartay ay mataqaana ku jiraan haddana mararka qaar nasiib darro waxa dhacaysa dadkii dibadda yimiday ee maanta aqoonta laga sugaayay ee la filaayay inay ku celiyaan dadka wanaag inay inta telefoon qaataan ay ka shaqeeyaan waxa fiicnaa mar raba inaan sheego laakiin waa ogtiin sidaas oo kale inay waqtigooda ku dhamaan intay maqaadaha fadhiistaan qof aysan ogeyn inay wax ka sheegaan qabiil walaalkooda inay wax ka sheegaan waqtigooda intaas inay ku dhumayaan waxaan isleeyahay aqligoona inuu soo laabto way adduunkan qof la arkabo wuxuu leeyahay wax uu qabsado aakhirana qof la arko wuxuu leeyahay amalkiisa qof intuu raashin ku soo kariyo miiska ku soo saaray ma jiro qof adoo xun ka dhigaayo qof fiican inaad taa ma jiro aday kugu xiranta waxa rabtay inaad naqatid Soomaaliya hadaan ma waxaan dooranay sida aan nahay maya ma dooranin ma ku faraxsanahay maya okay maxaa taladeenu tahay taas su'aasha halkaas inoo joogtaa waxaan ahaanaynaa qaxooti wuligooda lagu sheekaysto waxaan ahaanaynaa dad aan wax qabsan karin waxaan ahaanaynaa dad aan mashaakilkooda xalli karin mase waxaan nagahaynaa dad mashaakilkooda xalli kara inaan naqano dadka mashaakilkooda xalli kara mar walba madaxan taagnaa waafaanaa waxaan dhahnaa dad fiican aan nahay
dad fiican inaan nahay inaan brief garanay u baahanta dad fiican inaan nahay inaan cadeynay u baahanta waxaan dhahnaa maalin walba waxaan nahay muslimiin waxaan nahay walaalo inaan cadeynay u baahanta dhaqankeena ka cadaato qofka muslimka waxa la rabaa qowlkiisa ficilkiisa inay iswaafaqsanaadaan waxa la socotiin 25 sano la soo dhaafay dada xirada dhadhaab ku jira dada xira kale oo Yemen ku taalo magaceeda aan ogeyn ku jira kuwa meel kale ku jira مسؤولية من نجا سارنت مثلا نجا مسار وأنا سارنت مسؤولية هل هبين أنت تساعد تمسوا ويدي سمحوا وقبل كرت عدد كاس اسمه ويدين أما هذا اسمه ويدي سوق بدل ما قوانين أما هذه اللي قبتي كفاية ما دل كان عن كنا هاي لبعتوين كجرا حكم ذا مالين والبقاء جالود أنت مالين دل وحالود أنت عارف ما ضر أقول لا أنا جرته لكن هذانا بدل ما لا يكبوها وبقى ملايا كجرا دول كعداد بيرتي راشين عكسوا بحايا حول هذا دقت راشين كيليسا لكن أنت صعدان هذا مسعدان مشكلة لا جرت أمرك محيط مرة بين أسوي دي سدوان وحلاقة يا با كنتم سنة كهر دتك صوماليات أقونت إليه إن إنسان لهين مانتا إن إنسان ولي بيسقونين لكن يكفي عنان سيدا يكونوا ولا مانتا سيدا يكونوا لهين مثال وحنا بينا مسوقات كنتم سنة كهر ما حسوستين حروين قحوتي أو صومالي كجرت مجرين معناه هذا وحواي ماشي بني آدم كهرو صعده أنا قاعد على مصعنا صاينا فكرنا أو باهنا هاي بدون كنا وأنا أركتين دولة عصبة بربراية هاد وحا بربراية دولة العقل هاي دولة دبر كالجسيجرة بربراية أنا قاعد تاني معلم والبوا قبلنا ماشي دي يمال عن كفوجين تاجنت بيسكو مركب وحواي دتك كلسوني ده إن أي في عنت كلسوني ده أنسكو قبنا صومالي هدانا إن في عنته تاسوا الباب كان ربنا إن لقى قالوا إن لسوعلية كلسوني ده وده حيسب برشة الصوماليين إن يسامنان إسكو كلسونادان إسحل دوران إسحل قامان وحجرت نمضو وإن جرت دولال كاجا محا مناسب كاجا محا كاجا هبون إن تكوس أسميسي لكن ما أنا ماني والبكف فكرت دولال كاينا دباتيس لنا عكلا وعن رواينا عدين شاقو سيدا نبضان وحن كفكرنا سياسة أننا مسو قارن وكفقنا هاي أننا وحن جونا برنامج اجتماعي وحن جونا ديك داتي عن دينو ولا تدعي عن دمينو داوعي قاري عن دينو دادك دباتي سنة عن قرقارنو دادك عن هيسانين قريها عن سكودين إنا وحوهلنو دادك عن أغونت هيسان عن حسامينو مركز كتير وحن كفكر كرنا سياسة ولا يفهمها ومالينا معنا وحن جيدا haddii anagoo dhan aan siyaasadda ku mashquulno maalin walba sii qasmaysa adigana qof bani aadam ah tahay xilaa ku saaran waxa laga yaabaa in asleeda waxa qaban kartaa meesha wax ka qaban kartid oo wanaagsan oo waxa qabanaysid ay ka soo baxayaan waxaan islaayahay wallahu ya'lam waa fikirkayga gaaban waa dadka la heshiisiyo dadka wax la baro caafimaadka laga shaqeeyo saddexda shay waa saddex asaasiya oo haddii la helo cidii siyaasadda hadda joogtana wax u taraysa kii birey maada caawinaysa qof walba Soomaaliyeena macno u sameynaysa inaan marka u soo jeesano inaan ka gudubno kala xiraanta kala qoqobnaanta iyo shakiga inaan ka gudubno waxaan uga gudbi karnaana inaan la nimaadno niyad wanaagsan geedka inaan soo fadhiisano golaha soo wada fadhiisano gabdhuhuna inaan dhexaadiyaan maadaama ragga aan isku filnaa weynay waxay tiri gabadhii haday hadlaysa magaceeda miski waxay tiri gabadh aan bixinaynaa aniga waxaan qabaa hadda anaga wiilal bixinayna hadda anaga wiilal bixinayna waxaan rabnaa in la heshiiyo ma ogoshiin diyaar marka Soomaali falillahi alhamdu ilaahi nicmooyin fara badan oo la soo koobi karno siiyay adduunkuna marxaatiyo ka yahay marxaatidan rabaa in aad sheego Soomaaliya maalintii dagaal ka dhacay ilaa hadda waa lagu mashquulsan yahay maxaa loogu mashquulsan yahay weligeed mis weydiiseen maxaa kale isweydi su'aashaas caawa dhan hayso war dhulkan waa nagu filan yahay khayrkiisu waa nagu filan yahay annaga iyo intaan ka marti soori karno intaan saaxiibaleen oo ku filan yahay intaan iimaanka isgelino aan isu soo laaban anagu oo aan iscafino meel dhiig muslim lagu daadiyay oo dad muslima lagu xaqiray oo gabdha lagu kufsaday oo hanti lagu qaatay
aan la isku cafin haddana maalin walba leeyahay khayr ma ka yimaado oo khayrka meeshii ma badhigina xaq ka imaana khayrku meeshii in la geeyo Soomaa ya khayrku meeshii in la geeyo baahan yahay koobkaas dhaladaas waxaan ku jirin haddaan ka raadiyo nafteeda baan u sheegay dhaladaas caano ma ka keeni karaa malab wax kale kama imaanay biya ka imaanay soo annaga maxaan sameeynaa si wanaag u yimaado wanaag miyaan sameeynaa ilaa aadin ku og wanaagaan sameeynaa waa aad u xadidan yahay dadkii wanaagsanaan la arkaba gurigiisa fadhiistay albaabkiisa xirtay wuxuu yiri aniga waxba kama qaban karo hadda adiga wax ka qaban kariyaa ka qaban kara nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxau noolay 63 sano sida culimadu noo sheegeen 23 sano oo dacwada waday diintaan aragteen 23 sano ku gaarsiin waxa lagu soo diray asagoo fardi ah wuxuu ka tagay ummadda toosan oo isku diba dhacsan annaga ma waxaan kari laanahay kun qof oo rag iyo haween oo u istaagta nabadda dib u heshiisiinta caafimaadka dadka la gargaaro oo ay runta wax ka rabin gurigiisa ka bixi jiray asagoo nadiifa galabtii wuxuu soo laabanaa asagoo boorle oo daalan habeenkii oo seexdaa salaatu leelo u istaagaa subaxdii meesha uu ka bilaabo 25 sano sidaas ku dhameystay haddaan nahay ummatu Muhammad haddaan nahay muslimiin waxaan la gudbaa waa inaan ogaanaa waxaan la gudbaa waxa waaye yani ikraam ad-dayf ikraam al-jiraan يعني مساكين ولا قودية مساكين ولا كلمة تحس النبي نقول صلى الله عليه وسلم ما أنت وحى يمدي ضدها يعني كدنا جنة كجلا ورجنة أساس لقوا مقالة يعني واحد ربع اللي يرضى لما رنها بابنا إن وحير كيرا محيين ليق للدادية جنة لقوا مقالة ليق حق در لقوا دادية يعني وذا جنة لقوا مقالة وحس على ما أنت وفتنة مسلمين تنعيب كتامل الجوعان marka caruurteena inaan ka warqabno annaga waxaan ku faanaa diinta islaamka waxay nagu soo gaartay nabad weligeed dagaal kuma dhicin culimadu markaan geela raranana waa daba kici jireen markaan magaalo tagnana waa bari jireen sidaasay wax nagu soo baraan ilmaheena quraanka wada yaqaan gabdhaha quraanka yaqaan dadkii quraanka yaqaan soo aragnay maxay waxaan isbedelay markii dhibaatada timid oo aan rabnay inaan u fakano diinta iyo culimada miyay timida in dadka lagu dilo diinta billahi alaykum kas aqli ma see u fasirayna islaamka oo nabiga noogu sheegay inuu salaam yahay oo quraanku noogu sheegay ayuha alladina aamanu dkhulu fi silmi kaafatan inuu yahay dagaal iyo dhiig la daadinayo see ku ogolaanayna ma ogolaa kar annagoo dhan waa aamusanahay annagoo dhan waa murugaysanahay annagoo dhan waa fikirayna waxa leenahay war waxaan islaamka la sheegay ama wax kale ma islaamka waxa laga yaabaa nin walba inuu shakiiro war islaamka ama sidaan ahayba ما أه إسلامك سداس إسلامك هو النبض إسلامك هو وناك إسلامك هو دغم وناكسن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحور إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق محوي هاي ضعيف كله قرقاره مرتد ولا صاره ضد كله وناجيه أخلاق وناس أنت كل ورت عامله واحد دعاء عالم الإسلام ما أنت مرك معيه واحد أركيسين مركا قفل بوسو ماله ما قفل المسلم مركو إلى بورك مراين ليرا شيخ لو دقيقة كوبانا ما حد عاي كلمة مسلم يا صومالي ما حاسم يا أستاذ ما هنيك لا سمي مركب ما حاوق هذا أنا قدم بنيك لا سمي أنا قاني ما شو كيمد أنا أسكبر يا رلو بعين سوساس ما مركب عد كينا ماشي أجوكتين وأنا كرودكتين صابتنا وحاول الدولة اندفاع وين مجوكتو أنا أسكتكتين كومونيتي هذا قان نقتين فكرة ديننا يعدل فكرة ديننا يعدل هذا حشوتين ليدن مدينة يقوليها لذوق إيمانا مركا المهنة إن الوعي قليل بهاين علماء واجوغان شمامة حاشية رك بدنا جوغ خير الله سيو دعوة دي وضع وقايا المها محاضرات الله سمايو هلا وعي قليل دين تان وحيابها يعني ديمه سود قردان وحيابها لغو منطقة يقول كل الدوانا وحاكم هذا مثل أركب موضوع قاري كهال جرت أي حوق صار جرت أيوة أصول شيء سقام هذا marka waxa la rabaa qadiyada ictimaado cusboonaata in la cilaajiyo culimadu ay ka hadlaan dadka ay ka wacyi galiyaan si cala bayna ugu noolaato laba shay ba mushkil kugu noqonaysa inaad diintaada ka carartid dhibaato kugu noqonaysa in diintaada wax lagu dulmiyo adigana dhibaato kugu noqonaysa marka labadeeba waa inaan ka fikirnaa aanu laabta marka mawduucaygii asaasiga ahay barnaamijkan Samadoon Foundation waxaan soo wadnay muddo waxaa ku soo bilowday Mareykanka jaamacadda Boston markaan tagay dadkii mutacallimiinta meesha jooga markaan isagana waxa soo baxday
in loo baahan yahay saddexdan area ee wax laga qabto waxa la isku dayay wax laga qoro inta wax la sameeynin dokumentiga la diyaariyay meelo badan la soo maray Uganda Imaaraadka laakiin fursad waxaan u helnay dadkeena soo bandhigna halka markaan nimaday waxaana dhiiri galiyay jaaliyada balaaran ee UK joogtay Soomaaliyeed ee aan aaminsan inay wax badan ka qaban karaan anuga mahad celinayno ilaa hadda intay soo qabteen maxaa yeelay fikradda inaan soo bandhigno laftigeena anaga wax weyn ah waxtar insha Allah waa imaan doona laakiin marka hore aan isku fikir naqano aan ogaanay inaan u baahanahay dadkeena wax u qabano inaan u baahanahay ugu yaraan yani qofka diinta islaamka waxa ay ku fiican tahay raba qodob kale in halkan ka sheego ah hadii amal wanaagsan aad ku fikirtid ee aadan sameeynin ajir leedahay hadii kaliya aad ku fikirtid hadda inaad dadka islaaxisid oo aadan sameeynin ajir leedahay isku leedahay hadaa sameeysidna waxa leedahay 10 ajir iyo ka badan marka ugu yaraan inaad ku seexatid caawa ka warta ana aqdad laan seexat oo aadan dhihin sheekhan oo adu ka hadart adigan يعني ما كاغله wuxuu yahay Soomaali waay Muslim waay خلاص meesha ku dhamaatay taas horta qalbiga ka bix maxay la waan xal weys waagi hore reerbaadi waa naga aqal badnaayeen khayr Allah siiyo waxay u ahayd sumad iyo calaamad la isku garto hebel oo reer hebel oo meel hebel looga yimiday oo macnaheedu tahay in la soo dhaweeyo loo loogo laakiin hadda anaga waxay noo joogtaa hebel oo reer hebel ma soo galay يا هدي هذا أنت أنا ماشي تاجن الأركب وحبل مسوق ولا ورا بالكلا دقائق نلا الأركب وكن كلكم مسوق أنا توصلنا ده مسوق الشيء ده أنا مسوق الشيء أي صعب حاجة دقائق دقائق يا سهرة ماشي وحبا أنا قد وحالي 2 مليوناتين 2 مليون حرفتين كلا فردسين بالله عليكم أي عقل هذا 2 مليون وأيضا مشاكل كي ضربتين يكون حل سنة كلا تكتب محاكو حقايق سيرك وحناس دلكان أنا وحن قبا وحكرتك أوتليو أهل الحل والعقد هأوتليان أهل العلم هأوتليانو هل لقدايو عقلك ومدك لقينا هل لقدايو أنا أسوي جيسانو قفل بوا حكم مشغول شيء علميان ما أنت سكول جي علميان كم مشغول سنة هاي هذا نهار وحوله علميان أو كم مشغول سنة ساسو كده ما يستدون كيس لكن عرضك له ركلا قصاي وحبك فكرين marka dadka wanaagsan oo guriyaha ka soo baxa banaanka imaada wanaaga aan iska kaashano dhamaanteen tacaawanu cala albirri wa taqwa wala tacaawanu cala al-ithmi wal udwan annaga meesha kala qaadanaa umalena ayada qaybta dambe tacaawanu cala albirri wa taqwa wala tacaawanu cala al-ithmi wal udwan maxaan sameeynaa anaka لماذا ما حنا سoo galay adduunkeena khasaaro aakhira khasaaro يعني runtii inaan aqli ina fikirno waay jidka aan ku soconno waa dariiq khaldan waxaan u baahanahay inaan dib u fikirno qof la arkaba wuxuu qaban karaa door oo leeyahay jira oo qaban karo waxaan rabaa inaan loo gudbo haweenka maadaama caawa ay wax ka dhawaajiyeen aanan rabo horta inagu mahad celiyo haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha gaar ahaan mataqaana hooyooyinka runtii inta aan magaalada maray waxaan arkaa iyagoo ilmo wada ama iskuul u wada ama يعني runtii aad dadaalaya aad iyo aadaan runtii u qadarinaya dhaqanka Soomaalida ani waxaan aaminsanahay in haweenka marka la iraa aadna uma fiicna aadna uma xuma yani ilaa xad haweenku waxay leeyihiin qiimo ilaa xad waxay leeyihiin cod la maqlo ilaa xad waxay leeyihiin kaalin laakiin maadaama hawl culus hadda ay taalo war badan oo tiro badan la wareejiyo فرصة هوانك إن أدلو كرلو قاعدة لكن هوانك لفت جودو أي هوانك يعني مثلا هذا دكتورة مريم قاسم أيضا هل كان جوكتان صوا عني وحد أنا وحرمنا أنا وزير نقطه أو ناش استماعه وقرتين سوما برلمان كمركل الحولة وعن كنت ذلك إن قبائل كوين يصحولان قبله وهوانا يكون صادران لبضنا كلا كلنا محايل أني نبضون ما يمقولي كرو حلقي هواين إسلام مدحونا محوسطن وقدري واي بقولكي وصدنا على الشيء مقدري كراني لكن وعن كري كرا إنا إرا ورقبنا كصادرة قبلها كصادرة ما ليس وقارت هذا فلله الحمد يعني ما شاء الله قيمنا أي الله يبارك ما شاء الله فيرنا يا حواي برشة هذه قيمنا جورجا يفرضوا أيسن دور لهين قيمنا أي شقينا يسوع
jirkii ma wada dhaqaaqi karo marka kaalimo badan oo annaga nooga fiican yihiin ajira yani مثلا hadda waxa la yiraahdaa civil servant-iga aniga qiimeynteeda waxa way gabdhaha ku fiican waqti badan ay ku bixi karaan waa daacad xoolay dhacaan ma raadinayaan inay wax qabtaan ay rabaan waa meelaha xoog uga shaqay karaan siyaasadda waa soo gali karaan wax badan ay ka qaban karaan laakiin hadda rag meelaha oo culeysku ka jiro oo aan isleeyahay haweenka aad looga baahan yahay waxa waaye meelahan hadda aan sheegayno haddii waa aragteen magaaladan aad joogtiin kartida iyo dadnimadu waa meesheeda laakiin aqoontu waa shay asaasi ah gabadha wax baratay ee wax taqaana inay ilmaheeda diyaariso waa u fududda soo baantay midaan wax aqaanin marka shaacir carbeeda wuxuu yiri al-ummu madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al-a'raqi yani hooyadu waa iskuul haddii iyada aad diyaarisid waxaad diyaarisay ummad gurigeeda waxaa ka soo baxaya dad wanaagsan marka hooyadii marka horeba waxaa fiican in la baro waxbarashada lagula dadaalo waxbarashada marka lagula dadaalo kadib waxaa imaanaysa iyada inay soo saarto jiil fiican dhaqankii iyo xushmadii Soomaalidu ay lahaydna waa muhiim in la ilaaliyo maxaa yeelay ummad sumad la'aan meel joogaysa ma jirto ummad arka sumad ay leedahay dhaqan ay leedahay in ay ilaalisaa loo baahan yahay طبعا haweenka Soomaalida waxyaabo lagu amaano waxa kamid ah inay ka duwayeen haweenka kale oo dhaqankooda ay wataan in caawa waxa arkay diracyo fara badan oo la wato jalbaab ma sha Allah yani waxa soo dhan waxay muujinaysaa yani dhaqankooda inay sitaan bani aadamka oo dhaqankiisa ku faanana waa loo baahan yahay waa laga yaabaa wadaadada qaarna dhaan wuxuu yahay dirac laakiin waa astur waa wax fiican hadday hata inta goonooyin soo wada qaataan meeshan soo fadhiistaan waxaan sameyn lahayn marka mawduucaasna waxaan rabaa halkaas inaan ugu gudbo waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo ma gabagabada ka hor waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhibaatadii ka dhacday shalay hotelka Makka al-Mukarrama dadka dhintay Allah u naxariisto safiirka runtii Yusuf Bari safiir ila soo shaqeey wahay aad active ah ilaahay u naxariisto dadka kale oo dhintana Allah u naxariisto kuwa dhaawacan Allah caafiyo meeshaasna Allah noogu sino ilaahay idinkiisa dhibkooda waxaan rabaa marka inaan aado mararka qaar waxa laga yaabaa Soomaalidu inay dhahaan barnaamijkan ma barnaamij ijtimaaci ah oo ummad wax lagu qabanayo ama se waa barnaamij siyaasadeed barnaamijkan barnaamij siyaasadeed ma waa barnaamij ijtimaaci ah ujeedada laga leeyahay in wax la bedelo hoosna laga soo dhiso bulshada meesha dhibaatadu ka jirta la aado laga soo daaweeyo ujeedadiisu waa sidaas waxa laga yaabaa inaad isweydiisiin dib u heshiisiinta waxay ka bilaabanaysaa gudaha see u bilaabanaysaa maxaa dhici doona waxyaabahaas oo dhan insha Allah waa noo imaanayaan dad ku hawlan inay diyaariyaan laakiin waxaan rabnaa jawiga guud inaan diyaarino oo qof walba doorkiisa u qaato oo talada uu leeyahay uu keeno sidaas aan u baahanahay dibadda marka la yiraahdo waxyaabihii gudaha ka jiray intana waa yaalin Soomaa bal ka warrama haddii aan dhano marka inta laftigeeda dadkeena is dhex galino oo la wada hadlo oo xoogaa dhulka loo dhaweeyo inaan isku dayno oo gudaha mararka qaar waxa ku laabta telefoonno badan oo aan caawinaynin nabadda aan caawinaynin Soomaalinimada aan caawinaynin iswalaashiga marka 20 sano soo wadna 25 sano wax laga gaaray ma jiraan oo dhibaato ahayn in marka bal isbedel gudaha dibadda uu ka yimaado marka hore gaar ahaan qurba joogta dadka ugu badan oo qurbaha jooga Yurub waxaan u maleynaa waxay joogaan Ingiriiska marka reer Ingiriis oo ina qaadatiin initiative kana adika qaadatiin oo aad ka fikirtiin isbedelkeen oo ka bilowdo meeshan waxaan isleeyahay waa fursad reer Ingiriis hortaana aan jecelnahay dhamaanteen inteena kala Soomaalida ina aragno ayadoo dhaqaaqday waxayna naqalahayd arrin dhaawacina gaara kabta ugu yaraan in faa'iido ka dhala karto dadka dibadda jooga shalay waxay diri jireen basaarif ay u diri jireen birina inay diraan fikrad nabad qabta inay diraan oo gudaha dadka jooga ilaa xad aniga waxaan ogahay
qabiil waa ka daalan macna badan uma laha laakiin haddii la ruuxruuxo waa laga yaabaa inay u dhaqaaqaan markii waa waxay yaqaaniin marka meeshii aan ruuxi lahayn oo dhinaca fiican aan dhinaca xun aan u riixi lahayn inaan u riixno dhinaca wanaagsan inay arkaan dad kala duwan oo Soomaaliya oo wada caawinaya inay arkaan sida rag badan ay sheegeen ururkan ujeedadiisu ma aha gobollo mucayan inuu ka shaqeeyo ujeedadiisu waxa weeye Soomaaliland inuu ka shaqeeyo nabad meel kasta inay gaarto waxbarashada meel kasta inay gaarto caafimaadku meel kasta inuu gaaro istiraatiijiyadu waa taas ujeedada loo sameeynaana waxa waaye haddii gobol dhibaato ay ka jirto kan kalena bari ay gaari kartaa adduunkana waa aragteen Soomaaliya rabaa inay mitaal idinku soo qaato 91 markay burburtay dawlado badan waa digteen war maxaa isku haysatiin war maxaa idinka maqan laakiin ma dhihin war dadkan dhibaato ku dhacda mashaakilkooda waa xalli waayna aan caawino ma dhihin maxaa dhacaya hadda runtii aad uga xumahay laakiin waxaan rabaa in aad ii sheego guriga dariskaaga marka uu gubto dabka aad ku dami waysid adoo ku imaana warkaas in la fahmaa umaleyna marka kulligeena inaan istaagno dabka inaan damin hal qof inuu wax qabto iyo kun qof inuu wax qabatana waxa fiican kun qof inuu wax qabato waxaan jeclaa lahay aadna u rajaynaa Soomaali oo isbedeshay oo wanaagsanaatay oo midowday oo waxyaabaha aan tamaninayno ama yaani yidiilkeena intay gaartay miitaal loo soo qaato oo tala loo soo doonto oo la yiraahdo war adinka dhibka soo marteen haddana ka baxdeena maxay idin la tahay in la arko waa wax la sameey karo waa wax haddii aan istaagno ilaahayna nagu garab galaan sameey karno marka waxay nooga baahan tahay caziimo iyo isku duubnaan aad iyo aad u mahadsantihiin